odayaal wali waxaan ku jirnaa tabinta doorashooyinka maanta Soomaaliland ka bilaabmay Soomaaliland 2003 bishii Abriil ayaa laga bilaabay doorashadii ugu horeysay ee madaxtooyada Soomaaliland sheekhan garab taagan oo kamid ahaa dadkii afartii doorasho madaxtooyo ilaa aftidii codeeyay bal hay nooga warramo doorashooyinka Soomaaliland iyo taariikhdooda magaca saxanad oo noogu bilaabaya magacayga waa Suldaan Cabdi Xasan Maxamed doorashooyinka intaan soo arkayay maalinba waxba kordhaya maanta doorashada socota waa mid aad iyo aad boqolkiiba boqol aan isleeyahay horumar wanaagsan baa laga gaaray doorashooyinka oo si dimuqraadiyada u socda waan codaynay nabadgelyana waan ku codaynay cidii annagu aan rabnayna waan codaynay waaya 2003 doorashadii ugu horeysay ee daahir yaala kaahin أحمد محمود سيلاي فيصل على ورابل وكل دورني واتسوعديسay bal maalinta dib ugu noqo xusuustaadii xaqiiqdii waxa weeyaan daaway aragnimadu maalinba in baa soo beeraysa maalinta nooga waran bal sidii aad u codaysay iyo sidee ahayd maalintaas ciriiri bay yarahayd maalintaas xoogaa ciriiri ay ahayd anigu meeshii aan ka galay laakiin wacyiga maanta aad iyo aad buu uga duwan yahay dadka sida loo habeeyo sida loo isku garab taagayo aad boqolkiiba boqol maanta ka habaysan waayahay waxaad suldaan nooga warantaa 2003 markii aad soo kacday doorashadii ugu horeysay talaabooyinkii aad qaaday iyo adeegyada sidaad ku helaysay bal adiga soo joogay nooga waran adeegyadu way jireen laakiin adeegyadu way cuslaayeen adeegyo culus bay ahaayeen oo aan furfurayn oo aan waaya aragnimo lahayn laakiin maanta waxay leeyihiin waaya aragnimo aad iyo khibrad bay leeyihiin waa xad garataa inay boqolkiiba boqol inay ka khibrad badan yihiin maanta dadka adeegaya afar madaxweynaad hore doorasho madaxweynaad maanta tii afraad soo codaysay bal looga waran waxa isbedelay afartaaba aad goobjoog u ahayd waxa isbedelay dadka kuyuga ku jira dadka ilaalinaya isbedel baan ka arkay dadka ka socda komishinka ka socda ee meesha joogana isbedel weyn baan ku arkay waxaan arkay dad xasilooni wada dadka waaweyn gacanta haya qaab wanaagsan wax u wada aanad ka dareemaynin haba yaraatee wax ma taqaanaa gacan bidixaynaya waxaas aan midna ka jirin oo dimuqraadiyada oo aad boqolkiiba boqol aad isu garab taagaya dadka awal maxaad arki jirtay waxoogaa dadka ma taqaanaa yar waxoogaa ciriiri wuu jiray marka xaqiiqada laga hadlo yar ciriiri wuu jiray taana waxaan u arkaa uun waay aragnimo u soo biirtay dadka Soomaaliland ee komishinka ka socda adiga afar doorashaad codaysay suldaan maxay kaaga dhigan tahay afartaa doorasho iyo 6 kale jirayba guul bay iga dhigan tahay Soomaaliland ay gaadhay aan ku tahniyadeynayo waxaan leeyahay ma sha Allah nabad bay noogu bilaabantay nabadna ha noogu dhamaato way maxaad shacabka reer Soomaaliland u sheegaysaa maadaama aad sheegtay in qangaar ay yihiin oo afar doorasho madaxtooyo ay soo galeen laba wakiil ay soo galeen saddex deegaan ay soo galeen waxaan leeyahay talaabo fiican baa xagga hore loo qaaday boqolkiiba boqol xagga hore loo qaaday insha Allah biidnillaahi kariim inta inoo harsanna waynu gaari doonaa iyadoo la ina itiraafayna waan codayn doonaa insha Allah